haddii aanad maalintaada wadin ama maamulin inta ilaahay ka sokaysa maalintaadu iyada ayaa ku wadi doonta. waa aniga maxamed almansuuriya. maanta waxaan idiin soo jeedinayaa sirta maareynta waqtiga. ka soo qaad maalin kasta waxaa lagu siiyaa $68,400, laakiin maalintu markay dhammaato lacagtaas way tegaysaa. waxaa lagu yidhi isticmaal maalintaa lacagta, laakiin markii maalintu dhammaato lacagtu kaa dhammaanaysa. nasiib darrada jirta ayaa ah maalin kasta waxaad haysataa $68,400 oo second. maalin kasta markii maalintu dhammaato waqtigaas wuu kaa tegaya, kugumana soo noqonayo. su-aasha meesha taala ayaa ah imisaad ka faa'iidaysataa, imise ayaanaad danban ka lahayn, imisa ayaad waqti u qorshaysatay, mise maba xisaabsidba. hawlweli dhib ma leh, wixii tegay wuu tegay. maanta ayaanu joognaa, waa inaynu maanta iyo wixii ka dambaysaba nolosheena maareynaa inta inagu aynu awood u leenahay. maanta waxaan idiin soo jeedinayaa dhowr hab oad ku maamuli kartid noloshaada. dhowr hab oo haddii aad samaysid ay wax badan se kaa bedelayaan. qodobka koobaad uguna ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ayaa waxaa prioritize, oona ah mudnaansiin. iyo waxa weeye macnaheedu inaad kala siisid waxyaabahaad jeceshahay ama waxyaabaha ay tahay inaad qabatid maalintaada, inaad mudnaan siisid kaalmooyin xaggii noloshaada kaga jiraan. haddaba kaalmahan aad kala siisiinaysa maxay yihiin? aan ku kala sheego. waxaan sawiranaynaa 4 gees, 4 qaanadood ku jiraan. labada sare waxa weeyaan waxyaabaha degdega ah, labada hoosena oo waxyaabaha aan degdega ahayn. labada sare ka dhankan xiga oo waxyaabaha degdega ee muhiimkana ah, ka dhankan kala xigana oo kuwa degdega laakiin aan muhiimka ahayn. labada hoose labadu degdeg maaha, ka dhankan xiga waa ka muhiimka ah, ka dhankan xigana waa ka aan muhiimka ahayn. haddaba sirta maalinta waqtigaaga waxay ku xidhan tahay sidaad 4 qaanadood aad u kala gelisid waqtigaaga. dadka badankiisu say sameyn aan ku sheego, waqtigooga 50-50 waxay geliyaan waxyaabaha degdega ah muhiimkana ah ay geliyaan. inta kalena waxay u qaybiyaan 3 qaanadood kale oo ay waxyaabaha degdega muhiimka ahayn, waxyaabaha aan degdega ahayn ee muhiimka, iyo waxyaabaha degdegana aan ahayn muhiimkana aan ahayn. 3 qaybood ayay u kala qaybiyaan. haddaba sidee la doonayaa inaad waqtigaaga aad adigu u kala gelisid 4 qaanadood? 4 qaanadood, qaanada ugu mudnaanta badan aan laakiin la ogeyn lana dareensaneen waqti kadib mooyaane, waxa weeyaan waxyaabaha aan degdega ahayn laakiin muhiimka ah. waxyaabahaas waa waxyaabaha noloshaada aad iyo aad u bedeli kara. waxyaabahaasi waa waxyaabaha isku dhaafay. waxyaabahaas waa waxyaabaha haddii aad adigu inta qayrkaa aanu ogaan faa'iidadeeda, haddaad ogaatid aad dhaafisid dadkaas. marka qaybtaas waxaan gelinaa 70% waqtigeena. 30 soo hadhay ayaa waxaanu 20 gelinaynaa waxyaabaha degdega ah muhiimkana ah. 10 soo hadhay 12 kaa maqnaanaya, adduunyadu wax dhamaystiran ma jiraan. marka kulli haddaad 90% ka faa'iidaystay, 10 kale fasax bas kaga qaado. waay imika waxaad isweydiinaysaa, gartay ma noo sheegtay waxyaabaha ay tahay inaan ku dadaalno, laakiin su-aasha meesha taala ayaa ah waxyaabahan sidee ku garan karaa? dhib ma leha, hawlwelin anaa kuu jooga. waxyaabahan waxaad samaynaysaa qaaniba ka soo qaado iska fadhiiso, ani cidnaa shanqadh iyo ayni wax kale kula imanay. waxaad isweydiisaa waxyaabaha aanad hadda samayn, kuna qasbanin inaad samaysid, laakiin haddaad samaysid joogtaysidna muddo kadib 5 sano 10 sano noloshaada wax badan ka bedeli kara. markaad qortid waxyaabahaas naftaada ugu la og tahay, naftaada adaa garanaya, ee haddaad samaysid nolosha wax badan ka bedeli kara. waxyaabahaas ayaad lisgaranaysaa. ka soo qaad 7 shay 6 shay ama tirada inta noqotoba. markaad lisgaraysid 7 shay waa inaad waqtigaaga badankiisa siisaa, oo weliba waqti wiigla ka dhig. oo haddii ay 7 shay tahay 7 shay 7 cisho kala qabo, midba maalin qabo.
taas ayaa adaa garanaya sida fiican u maareyn kartid. Waxay ku xiran tahay shaygu wuxuu yahay. Qodobo kale oo caawin kara qorshahaaga koobaad ee soo sheegnay oo ku dulmaraya adoo tartiibiya maalintaada intaad seexan ka hor habeenkii. Waxaad qabanaysa berito hore qorshaha ku jira adigoo gool yeesha ama hadaf adoo sameeya planning maaha tartiibsi maaha kale. Planning waxa weeyaan waa qorshihii aad ku wadaysay noloshaada. Marka xagga gaadho saasaan sameynaya, marka saasaan sameyn doonaa, haddana shaygaasi suurtoobo saasaan sameyn doonaa. tartiibta laakiin waa maalintaada caadiga inaad tartiibiso, laakiin way soo iskaliya focus inaad usoo jeedo arrintaadan focuska saartid. Ka u dambeeya dhamaystir inaad shay kasta dhamaystirtid. Shay intaad haddii aynay awood kale ama qadar kale dhicin mooyaane inaad shay kasta markaad bilaabaysid ay niyadaada kaaga jirto inaad dhamaystiraysid, ay niyadaada kaaga jirto in aad ka midhodhalinaysid. haddii niyad intaas kaaga jirin gabadha marka hore maxaad ka bilaabaysa, maxaa waqtigaas kaga luminaysa. Theory aan habeen nabad ka fikirayay ayaa waxay odhanaysay ha ku qiimee naftaada awoodeyda marka lagu barbardhigo dadka kale. Ku qiimee awoodda naftaada, awoodda shay tolaad lahayd. Awoodda waxaa uga jeeda levelka yani. Waayahay xaggan fikradda ka keenay ayaa waxay ahayd libaaxa oo wada garanaysaan maydan arag kolley real maydan arag laakiin meelahaas ka daawateen libaaxa miisaankiisu waxa weeyaan 200 kilogram. 200 kilogram. labadiisa 100 kilogram ugaadh wuxuu soo jiidi karaa miisaankeedu ugu badnaan yahay 800 kilogram. 800 kilogram marka 200 loo eego 4 laab bay ku tahay. Marka waxaan oran karnaa libaax wuxuu soo jiidi karaa shay 4 laab ku ah. Waayahay quraanshada ama jinaca haddaanu eegno isagu wuxuu soo jiidi karaa shay 7 jeer kusoo lablaabay ama ilaa stage ayuu soo jiidan karaa isagu. Marka waxaynu oran karnaa xaddiga awoodda reeshiyada awoodda waxaa ka fara badan jinaca. Marka ka eego meel kale haddaynu ka eegno xagga growthka xagga koritaanka waxaynu oran karnaa shay walba shaygu reeshiyadiisa wasla garanay marka reeshiyada xagga ka keenay ay ka fara badan tahay uu ka korin badan yahay. Tusaale ahaan haddaad maanta adigu naftaadii shalay toole ama maalmihii hore aad waxyaabo badan iska beddeshay, halkaa waxaynu ka qiimeyn karnaa qof walba korin naftaada adaa og, shayga doonaysidna adaa og. waxaad samaysaa soo qabo levelka marisay maalintii dhawey ama waqtigii aad hore aad ogeed adugu. waxaad samaysaa kadibna levelkeed maraysay marka loo eego levelkaad bay ka maraysay xaddiga u dhaxeeya hadduu fara badan yahay koriinkaagu aad buu badan yahay, hadduu yar yahay koriinkaaguna aad buu yari. koriinka yacni shayga aad jeceshahay. dadkuna qaladaadka u badan ee aynu sameyno waxaa ugu badan ee ka mid ah shay baad bilaabaysaa ama shay baad wadaa, qof kale oo shaygaas uu kula wada ayaad arkaysaa, qofkiibaad si automatica ayaad maskaxdaada u barbardhigaysaa aad isu qiyaastaa labadiina qof. waxaa dhici karta inaad beginner tahay adu beri dhowdta adiga, laakiin qofkan kale uu sanado waday maxaad ka ogtahay adu durtabaab isla markaad aragto qofkaas niyadjab qaadaysaa. waxaa dhici karta inaad shayga iska diisidba. markaa niyadjaban waxaad samaysaa oo keliya ku qiyaas naftaada feershankaagii hore dadka kale iska daa. way fiican tahay marmarka qaarkood inaad dadka kale isku qiyaastid oo laakiin taas waxa weeyaan marka aad gaadhid level aad ka gaadho shayga aad jeceshahay ayaa isku qiyaasi kartaa dadka kale. waxyaabahan aan soo sheegnay haddii aad samaysid maxaad ka faa'iidaysaa? waayahay waxaad ka faa'iidaysaa kow hoos u dhaca jeesanaantaada. waxaan ka wadaa in aanaad mashquulin oo dadka qaar baad arkaysaa shay focuskii baa ka lumaya. shaygii waad samaynaysaa waana doonaysaa inaad samaysid laakiin waxyaabaha ayaa external kugu imanaya ayaa kaa jeedinaya shaygii aad doonaysa. waayahay laba waxaad ogaanaysaa qiimaha ay noloshu leedahay. markaad cabirtid saacad kasta waxaad samaynaysa sikinka ayaa qiimo ku yeelan doona. sikinka nolosha ma waqtiga iyo nolosha qiimaheeda ayaad ogaan doontaa. waayahay saddex waxaad gaadhi doontaa insha allah ahdaaftaadii iyo goolashaadii iyo hamiyadaad lahayd. afar waxaad noqonaysaa qof degan oo stable ah oo aan fikirayn maalin walba ku qabanayo ee wax kasta ay u qorshaysan yihiin. shan waxaa kor u kacaya xaddiga soo saarkaaga productivity-gaaga iyo waxyaabo kale oo aan halkan ku xusin. intaas kusoo noqona muuqaal joog meesha maar youtube hayn madaabaa wixii youtube kalaba waxaan isla imika malaha website buu ku jiraa live idinkuna hadaad lii sheegin xilqaamin imika ku dhufo waxaan ku dhufo saasaa kaga sii baasha muuqaalo meesha fadhide
waad mahadsan tahay laakiin waqti baan uga yar socdaa qiimeynta waqtigana waan ka sheekeynayay marka way iska wata waayahay haddaba waynooya muuqaalkiisa ودمتم في أمان الله والبيض الشريف